kadib imaanshiyahooda magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda, Abubakar Maxamed iyo Cumar Faaruq oo ah laba wiil oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah isla mar ahaantaana si aad bulshada ugu waaniya xagga diinta baraha dadka oo idil ay isticmaalaan ee afka qalaad loogu yeero social media ayaa waxay muxaadaro ka koobneed laba qaybood oo rag iyo dumarka ay ku qabteen masjidka ay u badan tahay Soomaalida ee tawxiid waxaana intooda badan ay ka hadlayeen bulshadana ay ku boorinayeen taqwada Alle. muxaadaradan oo ay soo qaban qaabiyeen culimo diinka Soomaaliyeed ee Masjidu Tawxiid ayaa ahayd mid dhamaanba dadkii ka soo qayb galay ay ka faa'iideysteen waxaana intii khudbadaha ay jeedinayeen hadaladoodii ka mid ahaa halka ugu qiimo badan oo ah masaajidka oo Nabi sallam uu leeyahay qoomkuma kulma meeshaasoo lagu amaanayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu sheegayo axaadiista nabiga sallallahu alayhi wa sallam haddii sidaas ay sameeyaan nabi sallam wuxuu leeyahay halkaas waxa imaanaya malaa'ik ayaa imaanaya naxariis iyo nabadgelyo iyo deganaansho ayaa soo degaya marka ay kulanka iyo muxaadarada dhamaatana waxaana la leeyahay ma taqaanaan istaaga idinkoo dambigiina la dhaafay dambi dhaaf ayaa lagu helaa imise qof ayaa hadda waxyaabo kale ku kulmay ganacsi xaflad aroos iyo wax la mid ah laakiin anaga maxaana kulmiye waa maxay sababta halkan oo kulan ma lacag la qaybsanayo waa may sababtana kulmiye halkan maxay tahay waa jacayl aan jecelnahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa jacayl aan jecelnahay nabiga sallallahu alayhi wa sallam waa jacayl aan jecelnahay wanaaga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wallahi inaan u jeedo wajiye ka cad caanaha ka qurux badan wax walba qurux badan wajiyadan yaani aad iyo aad ka quruxda badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin xifdiyo wallahi meel kale lagu ma hela illa Kampala maana Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin xifdiyo ma sha Allah ta'ala ana uma maleynin Kampala in wajiyadan quruxda badan inta Soomaali inta dumar ay degayin hada ogaa laha 5 sano ka hor ay degilaa laada hanaqato inna as-salata كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وحلا جانغوي ان الى وقتي نورشينا يا وحي لميد انكو الى صلاه ولا لا صلاه ومهم نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الذي سأودن به وحكمدها الصلاه ومدي ساسيو حنونسا او نخاقي مربك في سوحيو يا وحي لميد اي وحولها وحيت الصلاه وحاب ليس انه انا لهدليو قيس هذا مقلينا وحوليها الصلاة صلاة إلهية صلاة حجية ولا ليال وحكلا معهن مهما دمبيا رؤيه مهما حمان تاد أيته مهما أت إلى سبحانه وتعالى كفكته صلاة هكون قطوحة كلية آمالين تقيام أت حجيستد labadan wiil ee dhalinyarada Soomaaliyeed kana mid ah culimo diinka ayaa waxa ay alaaba ka shaqeeyaan sidii ay u faafin lahaayeen diinta islaamka iyadoo sidoo kale ay kulamo kala